kulanti wacan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada Dugsi Media iyo warkii ugu dambeeyay. Qarax aad u xoogan ayaa lagu weeraray taliyaha qaybta guud ee ciidanka gobolka Banaadir Faarax Qaroole. Taliyaha ayaa ka soo baxayay shir ay ku lahaayeen Villa Baydhabo isla markaasna lala beegsaday isagoo soo maraya wadada isku xirta Banaadir iyo Villa Baydhabo. Qaraxa ayaa ahaa mid lagu soo rakibay gaari loogu talagalay in lagu qaarijiyo taliyaha ciidanka. Hase yeeshee saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa sheegay in uu ka badbaaday taliyuhu dilkii qorshaysnaa ee loogu talagalay in halkaasi lagu qaarijiyo. Waxaa halkaas ku geeriyooday laba ka mid ah ciidamadii la socotay taliyaha, sidoo kalena hal askari ayaa ku dhaawacmay. Goobjoogayaal isugu jira ciidanka dowladda iyo shacbiga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in laga maqlayay dhawaaqa qaraxaasi guud ahaan gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa sida ila aad loogu kalsoon yahay ay sheegayaan in gaariga lagu fulinayay qaraxa uu ku baakinaa wadada dhinaceeda lana sugayay marka uu taliyuhu ka soo baxo shirka in lagu dilo halkaasi. Ciidanka dowladda qaybahooda kala duwan ayaa xiray guud ahaan halka uu qaraxu ka dhacay iyagoo markaasi sameynayay howlgallo isugu jira baaritaan iyo weliba sugidda ammaanka. Xilli lagu jiro kala guurka ayaa waxaa cabsi aad u weyn laga qabaa in ay si isdaba joog ah uga dhacaan qaraxyo ka dhan ammaanka dalka, balse waxaa diyaar garow weyn ugu jira ciidanka dalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan inay sugaan xasiloonida dalka Soomaaliya. Daawadayaal halka aad warkan kala socotaana waa Dugsi Media. Intaan warkan kiisa xiga dib ugu kulmayno, aniga iyo asxaabteyda oo isku duubani waxaanu idinkaga tagnay sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.